السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراله شرفت له آد بعدين سلام يا رن هانتي سأوجي الدين بوحن كجرا ترين وحن أسي سعنا أنا صاحبتي عاصمة وطنك سويدن ستوكهولم halkaasoo aan rabno inaan kaga qayb galno xaflad ballaaran oo loogu sameeyay yani xaflad ballaaran oo abaalmarin yani lagu siinayo lagu guddoonsiinayo maamulahayga maaragtay xagga shaqada dawladda run ahaantii waxay ii tahay farxad weyn waana sababta maanta anigoo halka ku jira u soo duubay waxa laga yaabaa intiina badan inaynan ogeyn yani Sweden meeshaan kaga noolahay waxaan ku noolahay caasimadda labaad ee Sweden Göteborg ama Gothenburg run ahaantii caawa farxad ayay ii tahay in aan ka qayb galo maamulahayga qaaliga ah taasoo ah yani maamulo daryeesha oo micnihii u damqata ajaanibta wadanka ku cusub raba inay dhalaan iyo qof kasta hooyo ah ee dalbata duulo ay u hirgelisay oo u fududeysay inay hesho qof la luqad ah oo maaragtay la aragti ah oo la dhaqana in uu markaas maalinkaas weyn ee farxadeeda iyo maaragtay ilmaheedaas dunida ku soo kordhaya ay la qaybsato ama wixii markaas saacideyn ah oo caawinaad ahna ay u hesho saa u jeedinba wadanka waa barafkii baa noo bilaabmay sabtidii hore run ahaantii qabow badan hadda ma dareemayno waxaan ku jirnaa maxaan ahayo tareenka laakiin qabow cidiyuhu ku soo baxayaan ayaa meesha ka jira alxamdulillah ala kulli xaal balse waxaan rajeynayaa inuusan dhulku sabiibax ahayn marmar buu dhala noqdaa oo lagu jajabaa taasaana maaragtay aad uga walwalsanahay walow haddii kaba fiican qofka uu u xirto uu ka badbaadiyo marar badan yani cimilo xun ma jirto ilaa dhar xun mooye waxaad caawa aan idiin soo bandhigi doonaa aniga iyo saaxiibtay falas markaa hoteelkeena tagno oon kala degno ayaan rabnaa inaan maaragtay aan halkaas aan idinku maaragtay idinkula wadaagno qodobo muhiim ah oo ku saabsan micnihii duulanimada iyo micnihii wixii meesha ka dhacay iyo waxyaabahaas oo dhan waxaan idin leeyahay kulan dambe oo waxaan salaam calaykum